Glorious morning to you. It is a beautiful day. I am so grateful. I just finished working out. I feel good. I'm sitting outside, sipping my coffee. I feel like I have wings. I can fly. Like all I have to do is just spread my arms and just whoop. I'll become a bird. Oh, mashallah, alhamdulillah, rabbil alameen. Ilaw mahadol maadiga ku sugnaatay. Before I get home, I want to share a message with you because once I get home, I'm going to be really, really busy. Gabadh yaro aan jeclahayo, mashallah, one of my adopted young sisters or daughters ayaa fariin cajiiba ii soo dirtay cajiib ah. Oh my God, it just one dhegeysanayay while I was working out, and I'm like, oh my God, I better capture this haraka and share this with my sisters and my daughters and my friends. You know, it's so important. And of course, I've talked about this many times, but it's always good to remind ourselves, Martha, of the importance of this message. Waxay ka hadashay the fact that weligeed inay doonaysay inay Maraykan timaado when she was a little girl, and she visualized it, and Ilaahay subxaanahu wa ta'ala si lama filaana ayuu Martha ugu soo dhaweeyey. And markay timid the land, I always ogeyd inay the land of abundance tahay. Xidhiidh bay bilowday, xidhiidhkii baa dhulka ku jiiday, and waxay ka lug bixi weyday oo ku mashquulshay siday mar xidhiidhkaa u haysan lahayd, mar uu u soo ceshan lahayd, marna ay uga bogsan lahayd. Wixii dreamskii iyo maaragtay barwaaqadii aan maaragtay imi iyo dreamskii iyo himiladii aan ka fikirayo dhan xidhiidhkaasaa isku qududubsaday. Then it took her years to get over it. Marka waxay tidhi habareed, waxaan doonayaa kuu sheego hablaha Soomaaliyeed waxaa laynoo normalize gareeyay ama dumarka Soomaaliyeed xanuunka iyo ciilku inuu yahay caadi ama heartbreak, and inuu yahay wax to be expected ah. Not only that, inuu noqdo wax ku ciilo oo dhulka kugu jiida oo aad ka lug bixi weydo haddana iska caadiya. Waxaad ku koraysaa hooyada iyo habaryaraha iyo ehelkaagii iyo dumarkii kale aad taqaanay oo dhan gabyaya ama buraanburaya oo ooyaya oo maaragtay ku celcelinaya barkimada naagan ku ooyin oo caruurteeda maaragtay ku korsan ciil, de maaha qof caadiya. Waxay tiri markaa we became a community that glorifies pain in general, and it's true. Gabdhaha Soomaaliyeed markaad u fiirsato in badan marka kaliya loo soo hogto ee la dhageysto waxa weeyaan marka ay ooyeyso ay cabanayso ay hebel caldacar ka cabanayso. Marka waxay tiri kulligeen waxaad moodaa inaynu nahay ciil suge. We normalize ciil iyo calaacal iyo cabasho, but now scientifically waxa la ogaaday waxa aad attention-kaaga siiso inuu energy-gaaguna aado. Waxa aad focus-kaaga iyo attention-kaaga siiso energy-gaaguna inuu aado. Waxaa dabadeetana in lagu ballaariyo. waxaana taa markhaati ka ah Soomaalida. Aad iyo aad baynu u leenahay dhaqan cabasho. I think it's because gratefulness-ka inagu yar. I know inaynu nahno alxamdulillah, laakiin alxamdulillah sidii laynooga baahnaa uma nidhaahno. It has to come from in the depths of your soul. Yeah? Waa inaanad u qaadan adduunka iyo noloshu inay tahay cidhiidh. Inaad u qaadato inaan lagu keenin halkan inaad ku dhibaatooto, in lagu keenay inaad ku faraxdo oo aad oh my God galladda Ilaahay aad ku mashquusho oo aad maaragtay nature-ka jeclaato oo aad quruxda jeclaato oo waxa weeyaan wax walbo Ilaahay kugu keeno si daacada aad wixii xunna aad tiraahdo shaydaan baa ka masuula oo aad focus-kaaga kala leexato, wixii wanaagsanna aad diiradda saarto. Ilaahay bay ka yimaadeen waxa wanaagsan. Focus-ka markaad saarto waa lagu ballaadhinaya, waa lagu barakaynaya. Waxa xun shaydaan bay ka yimaadeen. Yeah? Haddaad focus-ka saarto taasun baa lagu ballaadhinaya. The choice is yours. Naftaada ku mashquul. Qof kaloo bini aadana habdhaqankiisa iyo waxa aad maaragtay kala kulmi doonto waruma haysid. Ku mashquul naftaada. Markaad naftaada ku mashquulsho ee hareerahaagu buuxaan, ee aad nature-ka jeclaato, ee aad noloshu qurux badan tahay, ee maaragtay adigu aad isku faraxsan tahay, ee you're proud of yourself. Qof bini aadanay wuu isku dayi karaa inuu ku ciilo, laakiin kuma ciili karo. Ha saarin pedestal aanu waajib u lahayn, meel sare oo aanu xaq u lahayn qofka bini aadanka ee simbolka ha saarin. Innagaa ka dhigna wax weyn. 8.2 billion people baa adduunka jooga.
yeah, the vast majority of them ay niman yihiin suquuqul ma jiro ha ka dhigina suquuqul qof walba inta aad leekaysiiso ayuu joogaa ixtiraam marka hore jeclow sharaf adigu waajibkaagii ka soo bax waxba ha la hadhin aan ahayn dee dignitigaaga iyo in lagugu dul socdo and don't expect pain because if you expect pain pain will come iyo dhibaato iyo xanuun expect the best expect greatness expect qurux and that's what you'll find even if it doesn't work out oo intii laydin qoray aad kala qaadaan it will always be beautiful ciil iyo xanuunna kala hadhi maysid si yaroo aanad filanayn ayaad ku bogsanaysaa you will move on because intii badnayd iyo baaqigii baad haysataa caafimaadkaagii baad haysataa noloshaadii baad haysataa so many great things aad ku mashquuli kartaa jirta subxaanallah be grateful from the depths of your soul be grateful